Are we comfortable? We are not. We are not comfortable because dawladda hadda ka dhisan khaasatan madaxweynaha hadda wadanka Kenya dagaal toos ku haya gobolada Soomaalida runtii iyo Soomaalida dagaal cad oo ku doonaya in la yareeyo dhaqaalaha la geynayo Northeastern ama in la yareeyo representation ka Soomaalida ay leedahay sanadkan soo dhaafnay sanadka oo lacagaha counties ka qoondaysa aad bay dagaal ku qaadeen in la yareeyo lacagaha la geeyo Northeastern haddana arrintan kaga baxay waxa weey dhaqdhaqaaq waxa socda oo lagu doonayo in dastuurka wadanka la bedelo oo waad maqasheen loo dhax BBI oo 2 sano 4 sano baad socda laakiin ay maxkamaddu hor istaagtay dhaqdhaqaaqaas waxa lagu doonayo isbedelka ugu muhiimsan oo dastuurka lagu sameeyo rabo waxa waa in la yareeyo representationka ay leeyihiin khaasatan dadka waqooyiga Kenya degan oo Soomaalidu ay kamid tahay majority tahay iyo in qaybta dhaqaalaha ay helaan la yareeyo because waxa ay misan yihiin in Soomaalidu dhaqaale fara badan ay helaan aan waan ka muuqdaan runtii dawladdu ay ka muuqdaan wadankii way ka muuqdaan marka xoogaa cabsi baad moodaysaa in laga qabo Soomaalida inay maaragtay wadankii dhaqaale ahaan ama ka siyaasad ahaan ay la wareegaan marka cabsida darteed waxaad moodaa in campaign xoog leh kula jira khaasatan ninka aniga ragga xisbigan soo doortay ayaan ahaan jiray marka campaign xun baa lagu hayaa laakiin macadalik waxaan aaminsanahay wadanka Kenya Soomaalida they fight for their space they fight for their space ma sugayna dawladda Kenya ba wax ku siin doontaa ama dawladda Kenya ba wax every time ragga aad aragteen oo Soomaalida siyaasadda ama meel walba ku jira ama shaqooyinka farax badan meel ay Soomaali ka shaqeeyeen malaha hadii ciidamada la yiraahdo ninkii madax way ka noqdeen booliska Kenya intelligence security the meel kasta laakiin waxa waa individually yani waa dadaal fara badan bay sameeyaan laakiin campaign waa socdaa marka waxaan ku soo koobayaa Soomaalida dadaalka waa jira laakiin mar walbaba fikrad way jirtaa wadamadan anaga minorities kan ku nahay sida Kenya oo kale taa am sure iyo Ethiopia markii la isku yara xanaaqa ama la isku yara kaca wad maqli qof dawlad kamid ah ku dhaabariya meesh Soomaali baad u maleynaysaa yani mar walba fikrad way jirtaa inaad tahay you're not native in adan ku ahayn wadanka fikrada aynkaas wali dadka qaar aaminsan yihiin oo dawladda laakiin alhamdulillah Soomaalida they have fought for their space and today in Kenya I think they have got a stake in that country and they have shown it so I think we'll continue later in the other comments thank you very much وما سنتهي حلوان وحن مركن سيني ambassador آدم بيرلو وحن